guutooyin ka mid ah ciidamada xaqudurka gobolada Soolsag iyo Cayn ayaa talisay fadhiisama ku yeeshay dhuuxa dhoodiyad ciidamadana ku gaashaamaan hubka noocyadiisa kala duwan halkan ay Soomaaliland mari jireen dhimashada iyo dhaawacyada kala duwan wadadana ay wada qura u furay ciidamada Soomaaliland kagana aadan dhabarka dambe ee Goojacade sidoo kale xoogagga SSC ayaa sheegay in wadadani go'an tahay wax gaadiidsan oo mari karin waxaana ugu horeen halka ka hadlay Korneel Cabdifaax Ducaale Jaamac الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي أيام هذا كله نقسمي إنك دلكني قيب أودي متي قيب أودا متي قيب حبسيده وجران إن وقت دو صاف شرد دونه ميليشيات ككاميرات مصبحي موسى واحد يدي صوت سنكار ما أنت يدو ديجي يقولين هاي كاي يلمين كامي يلينه وضعنا هالقولة كليو فرنت مانت ninkii soo baxsada oo dadkan dariska nahay deegaamadaas wadada soo mari jiray isaga waxba u geysanmayno naftiisa iyo qorigiisa wixiisa uu mari karaa oo de soo muslimay qofka bilaanka uu muslimaabe ninkii wixii inta ka dambeeya ama xaabada boo laga soo qaadanaya dhoodi ma jirto saad dambe soo marayana ma jirto muhiimadeenu waxa weeye halgan kanu muddo dhow buu soo afgo'aya annagu waxaanu ka midnahay ciidamadii loogu talagalay doodi inay waajibaadkooda ka gutaan si shaqo kasta ay tahay waxaana igu balana muddooyinka soo socda in this week 10 lama ilaawana oo in badan cadawgu dhex uu kaga qomameeyo SSCna ay ku faraxdo inaanu ka fulino insha Allah bidmillahi kariim waxaan u sheegayaa shacabka SSC iyo hiil walaal hawshii meel fiican bay maraysaa cadawgii godkii Goojacade noogu jiraa wadadan kaliya garaadadu u fasaxeen way ka faa'iideysan waayeen tiina maanta aanu fadhiisanay cidda kaliya aanu wayni banaan tahayna waa cid soo dhiibsa naftooda iyo maalkoodana si aanay taadi ku jirin baan isku dhaafaynaa assalaamu alaykum aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda SSC Soolsanaag iyo Cayn iyo hiil walaalba meelay joogaanba waxaanu halkan ku joognaa cutub ka mid ah cutubyada Soolsanaag iyo Cayn ciidamadiisa oo waxa weeye gudanaya waajibaadkooda shaqo kuna cibaadeysanaya waxa weeye taalimiinta jamhadda ah ee kaga soo duulay galbeed guntii waxaan rabaa inaan u sheego doodii inta ay la eg tahay waxa weeye way go'an tahay dadkii xaq u lahaa baa digay oo jooga oo ka hawlgelaya waxa weeye isu socda ama waxa weeye ama ganacsi ha ahaato ama waxa weeye noocay u tahay gaadiid noocay u tahay ha ahaatee waxa weeye oo dambe oo waxa weeye mari doono ama looga shaki qabi doono doodii ma jirto amnigeedu waa sugan yahay ciidamadii SSC ba ku sugan waxa weeye wanaga ka hawlgalayna oo joogna waxaan leeyahay Muuse Biixi ama adeer wiilkaaga soo dir ama mid kale soo diro marba oog isku soo sawiro waxa weeye tan ninkii lahaaba u hadhaya waxaanu fulineynaa go'aamadii ay soo saareen odayaasha iyo gudida 330 ah galbeed inaan ganacsi xitaa haba yaraatee wax inooga iman kara aysan jirin marka waxa weeye waajibaadkayga shaqaanu gudanaynaa ilaahay noo fududeeyo waxaan leeyahay adeerow ciidamadaada halka ku go'doonsan ee ku jira ee afarta jahaba laga fadhiyo ee waxa weeye ugu dambeyn dhabarkii laga soo fadhiistay waxaanu leenahay adeerow intay ku badqabaan dhiigooda ma doonayno haddii aadan kala baxayn ha ku joogan halkoodaas waad arki doontaa wixii kala soo kulmay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaanu ku qabananaa saxaafad waxaanu salaamanaa ummadda Soomaaliyeed wixii islaama annaga oo ah ciidamadii jamaahiirta ee Sool iyo Sanaag waxaan nahay cutub ka mid ah ciidamadii SSC waxaan joognaa doodi waxay ku sugan yihiin ciidamadu dhuuxa doodiyeed waxaanu u nimi meesha inaanu halgankayaga ka qayb gallo inaanu wadooyinkayaga iyo dhulkayaga annaga iska leh inaan wax mari karaa jirin baanu hadeer baaq u jeedinanaa maanta wixii laga bilaabo inaan cid mari karin doodi inaanu xidhanay Muuse Biixina waxaan leenahay ciidamadaada meeshaad marin lahayd adaa og waxaan rabnaa si degdeg ah inta wadada qayb baanu ku banaanaa inta ku banaan inaad la kala baxdid wad salaamaya waanigu Maxamed Cawiil kawte dhuuxa dhoodiyad